dawadu markaad u fiirsato way qadhaadhahay. Tusaale ahaan kiniinku waa qadhaadh. Waxaynu isku dhaafinaa inaynu biyo cabno. Waxaana la mid ah wax kasta oo aad ka raadinayso caafimaad inay yihiin wax aad iyo aad u qadhaadh. Amba ha noqoto dawo qadhaadh oo lagu cabsiiyo, amba ha noqoto qalliin lagu sameeyo jidhkaaga qaybo ka mid ah. Xanuunkuna wuxuu u qaybsamaa laba qaybood, qayb dareen leh iyo qayb aan dareen lahayn. Haddii aynu ka horreyno qaybta dareenka leh, waa xanuun kula soo dirsa jidhkaaga, welibana kugu kalifaa inaad tagto goob caafimaad iyo weliba la kulan tiktoor adigoo u sheegaya barta ku bugta. Isaguna wuxuu isku dayaa inuu kaa baabi'iyo xanuunka Ilaahay idamkii. Dawada uu ku siinayo waad karahsanaysaa, balse waxaad ogtahay inay tahay midaad aad iyo aad ugu rajo weyn tahay si aad ugu caafimaadi lahayd. Waxaana ugu yar talada uu tiktoorku ku siinayo ugu yaraan cuntada aad jeclayd inaad ka tagto qaybo ka mid ah. Kadib haddii adduunka nolol kugu hadhay waad sii noolaataa, hadday taadi noqotana adduunyada ayaad ka hajirtaa. Taasina waxay tahay weliba mid aynu ku wada xukumanahay. Bal haddaba qaybta labaad aynu soo sheegnayna aynu mid iyo laba ka nidhaahno si aynu uga wada dhuganno waxyaabaha looga jeedo. Waa xanuun aanad ka dareemin jidhka qaybihiisa kala duwan. Mar walbana aad soo aragtay in caafimaadkaagu taam yahay. Waxaad moodaa inaad caadi tahay, waxaana laga yaabaa inaad haddana bestaa tahay. Boqolkiiba hal ayaa dareema xanuunkani inuu jiro oo iyaga hayo, halka 99 kalena aanay wax dareena u lahayn. Xanuunkani waxa uu ka xun yahay xanuunkii markii hore aynu soo sheegnay ee dareenka lahaa, sababtoo ah maad raadsan dawo aad ku bogsato. Waxaana middan koos garaynaya maadaama aanad ka dareemin jidhkaaga. Xanuunkan waa xanuun jira, inama wada hayo, inagamana wada madhna. Taana macnaheedu maaha xanuunka waynu ka wada caafimaad qabnaa, balse wuxuu hayaa inta badan marka bulshada la eego. Waxaa laga yaabaa inay kaa dhex guuxayso su'aal ah xanuunkani muxuu yahay. Xanuunkan waxa uu ku dhacaa qalbiga, waxa uu kugu dhiirigeliyaa adduunyada inaad horumar gaadho, waxaanu ku ilowsiyaa aakhiradaada dambe. Qalbiguna waxa uu yahay waacad yar oo ku yaala jidhkeenna qaybta laabta, weliba dhanka bidix. Waa hoyga iimaanka, marna waxa uu noqdaa hoyga kufriga. Ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxa uu qur-aanka kaga hadlay in fara badan. Waa meesha keliya ee haddii xanuun ku dhaco ay arrintaada amba mustaqbalkaagu uu xumaanayo aakhira iyo adduunba. Waa meesha haddii aad daweyso ay ku hagaagayso arrimahaaga aakhira iyo kuwaga adduun. Waxaana lagu daweeyaa raaligelinta Ilaahay. Qalbiguna waa cad yar oo ku yaala laabta dhanka weliba bidixda. weliba wuxuu yahay xarunta iimaanka, marna waxuu noqdaa xarunta kufriga walciyaadu billaah. ilaahayna waxaynu ka magan gelaynaa kufri iyo xumaan. taana waxaynu uga jeednaa mar wuu xanuunsadaa, marna caafimaad ayuu helaa. dunuubta ayaa uu ka qaadaa xanuunka aynu soo sheegnay. khayrka iyo wanaaggana waa uu ku caafimaadaa, oo dawadiisu waa dikriga Ilaahay iyo raaligelinta Ilaahayna abuurtay. haddii aad ilaalin weydo qalbigaaga, waxaa suurtagala waxyaabo fara badan oo dhici kara. lambar 1 dunuubta ayaa ku macaanaan doonta, waxaana noqon doontaa sidii gaari bilaa isteerina oo meeshu doono mari kara. ilaalinta qalbigaagu waxa weeyaan mustaqbalkaaga badbaadada. tani waa xaqiiq, anigu ma diidi karo, adna ma diidi kartid. waana awood inaga sarreysa iyo maamul Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu wato.